waa halkii dadka uu ugu yeeri jiray salaadaha iyo qayrka alle oo maanta lagu oogayo janaasadiisa. kooxa ku hubeysan baastoolado ayaa xalay xaafadda Diikow ee degmada Kaaraan ku dilay Xamse Cabdow Axmed oo ahaa mu'adinka masjidka Muqdimo Guure, iyagoona sidoo kale dhaawac daran u geystay Axmed Cabdow Axmed oo ay walaalo ahaayeen xilligaas oo ay doonayeen inay u hoydaan gurigooda. mu'adinkii masjidka Muqdimo Guure ee degmada Kaaraan ayaa halkan laga bixiyay meydkiisa. Allah u naxariistay mu'adinka iyo walaalkii xalay ayaa dablay hubeysan waxa ay ku toogteen degmada Kaaraan halkaas oo uu Xamse ku geeriyooday. Axmed Cabdowna uu dhaawac ku yahay oo uu yaalo mid kamid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho. Waxa loo qaaday qabuuraha Muqdisho ee duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo aan uga qayb gali doono aaskiisa. Allah u naxariistay aaska marxuum Xamse waxa ka qayb galay ehelada marxuumka, jamaacada masjidka Muqdimo Guure iyo dadweyne aad u fara badan oo ahaa kuwii saaxiibka la ahaa iyo dadkii kale ee degmada ee uu qayrka ugu yeeri jiray. halkan iga dambeeya waxaan ku aasnay Allah u naxariistay marxuum Xamse Cabdow Axmed oo ahaa Allah u naxariistay mu'adinkii masjidka Muqdimo Guure ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Allah u naxariistay hadda qabrigiisa waxa ka huleelay dhammaan jamaacadii masaajidka oo ahaa kuwii uu ugu yeeri jiray qayrka iyo salaadaha alle. waxa ku haray oo kaliya ehelkiisa iyo dadkii kale ee isaga saaxiibka la ahaa oo ay wali ku dambayso murugada iyo tiiraanyada geerida. eheladu waxa ay dalbadeen in ay cadaalad helaan maadaama laba wiil midna laga dilay midna laga dhaawacay. Allah u naxariistay Xamse waxa uu ifka kaga tagay 4 caruur ah, 2 xaas. waxa uu sidoo kale uu biili jiray oo uu u kaalmeyn jiray waalidkiis gaar ahaan hooyadiis oo uu ku ogaa halka ay degan tahay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. dawladda Soomaaliya marka uu soo jeesto ciidamadu waxay siisaa mushaar si ay cadawga noogu dhiciyaan, laakiin ciidamadu waxay mushaar u soo qaataan inay ummadda Soomaaliyeed shacabka inay laayaan. anagu dhalinyaro nahay, wax walba dalkan ka bedeli karnaa. labadan wiil mid hooyadiisa soo macsalamiye xaaskiisa u socday, midna gurigiisa u soo socday hooyadiisa rabay inuu xalay la jiifto. alxamdulillah meeysan dhicin tirbiya dhacday. dawladda Soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay siyaasad. amniga dalkan sugeynaa, wax amni sugan ma leh. anaga nagu baabi'iyay hooyooyinkeena maalin walba ooynooyin, xaasaskeena asay saaranooyin, ilmo yar oo caruur ah oo umul ku jiraana agooman, aabba ma haystaan, daryeel ma haystaan. intaas oo dhan waxa sababteeda leh dawladda Soomaaliya. dadweynaha waxaan kula talin lahaa inay dhiig isku yeelaan. maanta aan walaalayga dhinteen bari walaalahayga ku uma doontaa. haddaan saan isku gacmaha aan ku saarano kulligeena waan wada dhimanaynaa, qaab daraan u wada dhimanaynaa. geeridu waa ogolnahay, laakiin gobonimo inaan ku dhimanaan jecelnahay. dawladda Soomaaliya hadday saan wax ka bedeli weyso dhalinyaradan way arkaysaa wax qabadkooda. dilalka xaafad markasta ka dhacaan waxba la dhac, waxba la dilaa, waxba la kufsadaa. mar walba waxaan la lahayn waxa waay maxaa la lahayn waa laga dabatay, waa la soo qabanaa. wax la soo qabtana ma aragno. maanta dadkii walaalkay dilay magaalada joogan xaafadda ay degan yihiin ayaga ay dhahayaan maxaa ku dhacay soo u dhintay. ninna walaalkay dilay waxa ay dhaha soo u dhintay. xaafaddu jaama inaad tahay ma soo qaban kari, saldhig mugdaabe kari. saldhig oo imaad wuxuu leeyahay walaalkaas soo u dhintay, sidee wax u gaareen. wax kale ay hayaan ma lahan. walaalkay cadaalada uu rabaa. dawladda cadaalad ay tahay, cadaalad dadka dilay walaalkay way joogan, hala soo qabta cadaalada hala gooyay. haddii waxaan noo hayno dawladda aan noo sheegto nal halaaba la sameeyo amba waxa soo dhaw wuxuu saacid u baahan yahay waan adimi jiray, waa aadaan jiray, waa aqmi jiray, mar salaada wadi jiray, marba ma ogta walaalihiisa oo ka raadana galaashan wadi. marka nukuna saasoo aayadana u duceyn waana ku dukan waana quraan akhrin qabrigiisa Allah u waasiciyo inta soo xaadirtaan loo dambi dhaaf. marka Soomaaliya masiibadan way camimtay.
ha ahaatee haddana waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo nimanka ul amarka ah oo xukuumadda ah oo ammaanka sheeganayo isku haysta ammaan baan sugaynaa iyo ammaan baan sidaa yeelaynaa ilaahay baa ammaankeena sugi kara ilaahay baan cadaaladda ka sugaynaa cadaalad ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ilaahay horta uu raxmadda soo geliyo oo isjeclaysiiyo insha Allah kuwaana ilaahay u naxariisto saaxiibkeena Allah u naxariisto gacanka xaq daran ayaa dishay dawladda Soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa in ay gacan bir ay ku soo qabato dadka xaq daradaas ee saaxiibkayga ay ku dileen iyo midka labaad saaxiibkayga oo dhaawaceen marka waa idin tacsiinayaa marka waxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed inay wax qabato arrimahan macnaha ka socdo dilalka iyo dhac iyo boobka oo markaas xaafadaha noogula sameeyo caruurtii ayna hataa aan soo gadi karin maxaa la hal tumin oo sokora ay soo gadi karin oo jidka loo taagan yahay ciyaal madilay ay jidka u taagan yihiin oo madila gelinayo kasta uu haysto gacanta uu ku wata laga qaadanayo antaas dawladda Soomaaliyeed wax ay ka qabanayso malaha ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliyeed ciidamada taliyaasha waxaan rabnaa inay wax nooga qabtaan falalkan dhacayo maalin daa'in degmooyinka horta ka dhint ilaahay oo naxariisto kan oo jirna ilaahay camaad ilaahay asiyo laas waxaan ku codsanaynaa dawladda Soomaaliya in xaqeena siiyaan oo laba wiilashaas la dili madan la dhaawac in xaqeena siiyaan waxaan kale warkii adooma qalay wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtiis dhamaaday waxaan warkii adooma qalayaan nimankaas oo walaalahay la dili oo raba cadaalad in la helo gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Kaaraan waxa ay marar badan sheegeen in ay wax ka qaban doonaan oo ay ka guuleysan doonaan kooxaha dhaca iyo dhibaatooyinka kale oo ay dilalku qayb ka yihiin ka geysanaya degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir laakiin dhibaatooyinka iyo dilalku wali waa kuwa ku sii badanaya degmada Abuukar Dayax warbaahinta Dalsan qabuuraha Muqdisho duleedka magaalada Muqdisho